saaxiibkii shalay iyo cadowga maanta garabkii weynaa ee ninkii ismahdiyey waxaa doonta ugu yeer tani waa qisada dhabta ah ee dhex taal labadii saaxiib ee dhidibada u dhigay xisbiga ugu saamaynta weyn siyaasadda Turkiga ee AK Party. Kani waa Axmed Daawud Oglo, marna loogu yeero macallinkii diblomaasiyadda kaas oo hagaajiyey xiriirkii Turkiga uu la lahaa caalamka. waxa uu gaaray in lagu naynaasay injineerka siyaasadda xisbiga cadaaladda iyo horumarka. waxa uu wax ka aasaasay AK Party 2001 waxa uu soo noqday macallin jaamacadeed, safiir, wasiir arrimo dibadeed, gudoomiyaha AK Party. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay shakhsiga keliya ee Erdogan ka tala qaadan jiray, balse maxaa la isku maagay 2015 dowladda Turkiga iyo dagaalyahanada Kurdishka ah ee PKK ayaa kala saxiixday heshiis lagu tilmaamay mid taariikhi ah. intaas kadib Erdogan ayaa ka cagajiiday in mar kale miiska la isugu soo laabto, waana midda uu ka carooday saaxiibkii Axmed Daawud Oglo. sababta uu Erdogan ku hakiyey wadahadallada suuragalka dhigi lahaa in la soo afjaro qadiyadda Kurdishka ayaa ahayd markii dadweynaha Kurdishka ah ay taageereen xisbiga dimuqraadiyadda shacabka oo si weyn uga soo horjeeday AK Party. iscasilaadii Hakan Fidan waxa uu ahaa madaxa sirdoonka Turkiga. waxa uu iska casilay xilkaas 2015 isagoo doonaya inuu isku sharaxo xildhibaan, balse Erdogan ayaa si weyn uga soo horjeestay. Hakan ayaa lagu qanciyay inuu dib ugu laabto shaqadii sirdoonka. Oglo oo xildhibaannimada Hakan dabada ka riixay ayaa isna ka carooday, halkaa ayay haddana ku kala dhaqaaqeen. fashilkii doorashadii baarlamaaniga ahayd ee 2015 kadib markii xisbiga AK Party uu ku fashilmay doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ee dalka, Axmed Daawud Oglo ayaa si degdeg ah wadahadallo ula furay xisbiyada kale si ay u soo wada dhisaan xukuumad wadaag ah, balse Erdogan ayaa arrintaasi ka biyo diiday isagoo dalbaday in la qabto doorasho ku celisa. nidaamka madaxweynenimo Turkiga ayaa qaatay nidaamka awoodda siinaya madaxweynaha. Axmed Daawud Oglo ayaa ka hadlay arrintaasi oo muujiyey in nidaamkaasi aanay dalban dadka Turkiga, balse uu doonayay Erdogan. saaxiibkii Erdogan ee shalay maanta waa cadowgiisa. waxa uu dhidibada u dhigay xisbi weyn oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah oo lagu magacaabo Al Mustaqbal.